joogta dhagaxa tuuraysay dhammaan dadweynaha iyo dhalinyarada iyo shacbiga Soomaaliland meel walba ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi waxaanu xusuusanaynaa 8 guuradii maalintii halkan caruurteena beelbeelga lagu jiirsiinay maalinta waxaan aad iyo aad anugu uga hadlayaa saaka ina dhalinyaradiina dambe taariikhdiina qorataan haddaa taariikhdiina qoran weydaan mar labaad iyo mar saddexaad baa sida lagu sameeyaa oo laga xasuubaya waxaa laga nabad galaa in history-ga la qorto oo hadhowta laga baydho wixii meesha ka dhacay waxaan idin sheegayaa maalintii inqilaabka la sameeyay Xasan Kayd iyo dhalinyaro ay ahaayeen dad soo jira maalintii halkan uu lagu xilxilay oo sida oo cadayna waxa ahaynaba yar oo markaa mustaqbalkooda uu soo baxay oo jaamacadooda dhameystay inamadii dhagax tuuriyay inama yar oo dhalinyaro ah bay ahayd halkankii saraakiishu u baxday wada dhalinyaro ahayd oo soo jir bay ahayd waxa soo dhan dhalinyaro qabanaysa dhalinyaradiina maanta haddaydan taariikhda qoran oo garan roolka leedihiin waa la idin qabsanayaa mar dambena ilaahay kama dhigo ila la idin qabsan kartaan ma jirto cid loo iman kartaan ma jirto laakiin waa taariikhdiina qorataan halkan waxaan ka sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee wadanka haysta madaxweynaha oo aynu dooranay dhiigiisa u shubeen isaga Maxamed Kaahin halkan fadhiya iyo rag kale oo nool oo badan oo mujaahidiin waxay ku talagaleen inay dhintaan ilaahay kama dhigin ilaahay baa cimrigoodina u daayay darajooyinkan imika ay hayaan siiyay ninkii inta uu soo maray dhiigiisa u shubay inaanu meel la geynayn oo waliba ku dagaalamayo ka dambena mala odayaasha waaweyn ku qabsan doonaa baan u malaynayaa hadii dhalinyaradiina la waayo ay ku dagaalamayaan ilaa halka ugu dambaysa ma intii looga baqayo xukunka ma hayso waxaan kaloo idin sheegayaa dhammaantiin wada saafi ma tihin maalintii uu fadhi xidhxidhayay halkan rag baa intay tageen u tagay General Gani isla halkan jooga oo iminkana wax ka ah oo inta hadlayo waliba oo kuwi war baan ku haynaa nimankaas oo talaabay sameeyaan urur hubaysan waa la sameeyaa yana waa ururka gudaha sidaas dadka lagu qabqabtay nasiib darro iyo inay taariikhda ay wax ku gartay habeen way baan haddana kilib kala furay haddana ninkii wuxuu leeyahay the same man oo waliba darajooyin badan oo kala qabyaaladu siisay wuxuu leeyahay madaxweynaha iyo markay shiriyeen iyo Abiy Ahmed sila badan oo qarsoon baan hayaa waa sidaas wati adgaan u sheegtay nabadda buuxda xidhay dooni mayno sirna ma haysid madaxweynahana uga bixi mayno inuu qarankiisa ilaaliyo taas waa ta Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland idina qabsan karayso dhalinyarada waxa leeyahay waqtigiina baa joogtaan wadankiina oo xuraa joogtaan dhalinyaradan ani booliska ay ka caawinayso wixii dawladda hay'adaheeda gebgeeda shaqo qaran baa laga dhigay halkaas ay ka soo galeysaan wixii doonayay inay baayac mushtariyo wax samaystaan sanduuqyo madaxweynuhu u saxeexay waxa barlamaan iyo mar saddexaad ku celinayaa ina wadankiina ilaashataan qabyaaladna aydan cidna ku difaacin ninkii soo raaca nimanka aynu hayno waa la mid waa in sidaa la iskaga celiyaa haddii kale mustaqbalkiina ka go'an tahay aad baan idin wada salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذا هو سنبيه وسيلة وزارة الرياضة iyo ciyaaraha Soomaaliland waxa iyaguna qayb ka ah oo halka